muxuu Arteta ka yiri barbarihii kooxdiisa ee la gashay Sunderland? Mikel Arteta ayaa diiday inuu ka hadlo muranka ku saabsan goolkii soo daahay ee Sunderland ee sababay in ciyaartu ku dhamaato 2-2 halkii uu canaan u jeedin lahaa garsooraha ama waqtiga goolka. Wuxuu doortay inuu ka hadlo qaladaadka kooxdiisa. Arteta wuxuu yiri dib uma aanan eegin dhacdada, laakiin go'aanka waa la gaaray, waana aqbalnay midaas. Waxaan u ogolaanay inaan siino 2 gool oo isku mid ah. Sunderland aad ayay ugu wanaagsan yihiin waxa ay sameynayaan, gaar ahaan kubadaha dhaadheer, dagaalka hawada iyo sida ay u abuuraan jahwareer. Tababaraha Arsenal ayaa sheegay in kooxdiisu ay muujisay adkeysi iyo dabeecad dagaal kadib markii goolkii lagu lahaa ay ka daba yimaadeen. Kooxdani waxay muujisay adkeysi iyo geesinimo weyn si ay ugu soo laabato natiijadaas oo ay u keensato barbaro xitaa u dagaalanto guusha. Waxaan ku faanayaa kooxdayda. Si kastaba ha ahaatee, Arteta wuxuu qirtay inay jiraan waxyaabo loo baahan yahay in la hagaajiyo. Waxaan ognahay inaan kasii fiicnaan karno sidaan. Waa xilli adag. Waxyaabihii aan ku guuleysano 10kii kulan ee ugu dambeeyay oo aan shabaqeyna ku ilaashana waxay muujinayaan sida heerka horyaalka Premier League uu yahay mid adag. Maalin wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.